kulanti wanaagsan oo waxaan ku soo dhawaada barnaamij cusub oo ka hadli doono falaqeynta ciyaaraha iyo maxaa ka cusub maanta ciyaaraha maxaa ka cusub iyo taariikh nololeedka shakhsiyaadka kubadda cagta heer sare ka gaaray maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno tababaraha weyn ee guulaha u saaxiibka ee Jose Mourinho ninka la yiraahdo inaan ka hadalno taariikh nololeedkiisa magaciisa rasmiga waa Jose Mourinho dos Santos wuxuu ku dhashay Portugal sanadku dhashay waxa way sanad 26 January 1963 ayuu dhashay tababaraha weyn ee Jose Mourinho waxa mar loo aqoonsaday inuu yahay tababarayaashii ugu fiicnaa ee adduunka soo maray iyo midkii ugu fiicnaa ee wax sheego oo hadalhayntiisa badan iyo waxyaalo badan iyo muran badan ayuu sheegay marka waxa leeyahay waa tababarihii ugu fiicnaa adduunka soo maray mar ayuu ahaa taariikhdiisa marka gudaha u sii galno kooxihii uu tababaray iyo waxyaalihii marka ka hadalno sanadkii markuu ahaa 2000 wuxuu tababaray kooxda Benfica 2001 wuxuu tababaray União de Leiria 2004 wuxuu tababaray kooxda FC Porto naadiga FC Porto 2007 wuxuu tababaray kooxda Chelsea ee wadanka ka dhisan Ingiriiska ka dhisan 2008 wuxuu tababaray Inter Milan oo Talyaani ka dhisan 2013 wuxuu tababaray Real Madrid oo ka dhisan Spanish ka dhisan 2015 wuxuu tababaray kooxda Chelsea 2018 wuxuu tababaray kooxda Manchester United ee naadiga England ka dhisan Ingiriiska 2019 hadda la joogo wuxuu tababaray kooxda Tottenham Hotspur oo London ka dhisan marka u sii galno intaas waxaan ogahay kooxii uu soo tababaray marka gudaha u sii galno Jose Mourinho iyo xirfadiisii ka hor nasiib xumo Jose Mourinho marka uu ka daalay ciyaarista kubadda cagta asagoo ogaaday inuusan horumar fiican ka gaari karin wuxuu u jeesaday dhinacaas iyo inuu tababaro kooxaha asagoo markaas da'yar ayuu wuxuu go'aansaday inuu u noqdo turjubaan xagga luqadda Portugalka ninka way arag tababaraha way arag waagaas iyo sanadka laga damay Bobby Robson la jiray asagoo markaas oo xagga tababaro u ahaa Sporting CB iyo FC Porto asagoo ahaan jiray ka hor intuusan noqon tababar ku xigeen intuusan u noqon ka hor wuxuu ahaa Barcelona ayuu ahaa san uu kala soo shaqeeyay Robson iyo waxa kale uu la soo shaqeeyay tababar ku xigeen waxa Robson iyo Luis van Gaal labadaba Luis van Gaal ka hor u dhashay wadanka Netherlands iyo tababari jiray tababar u hor ahaa jirka kooxda Manchester United FC Bayern Munich ayuu ahaa ka bacdi wuxuu noqday tababar weyn wuxuu dib ugu soo laabtay kooxdii yaraa uu jeclaan jiray FC Benfica oo barlabaad ku soo laabtay União de Leiria oo hal sano uu matalay tababar wuxuu dib ugu soo noqday hadana tababar buuxa asagoo oo isuba wuxuu dib ugu soo noqday sanadku markuu ahaa 2002 kooxda FC Porto asagoo markaas kula guuleystay kooxda FC Porto horyaalka wadanka Premier League iyo mar iyo koobka dhagaweynaha ee UEFA Champions League oo marba la raadiyo ayuu ku guuleystay waa markuu cirka uu dhalay uu galay tababara Jose Mourinho koobkiisa ugu horeeyay oo Yurub ayuu qaaday ka bacdi Jose Mourinho wuxuu noqday macallin heer sare guushaas waxay u saaxiibtay inuu hore u socdo oo uu ku biiro kooxda Chelsea 2004 Chelsea waxa uu la qaaday laba Premier League hal FA Cup iyo laba League Cup Carling Cup muddadii 3 sano ahayd 3 sano ayuu joogay Chelsea kooxda Chelsea wuxuu la qaaday laba Premier League FA Cup League Cup mukaabil 3 sano joogay ka hor intuusan Chelsea ka tagin asagoo markaas qalaasi hadal isafgarawa uu ka dhaxmaray milkiilaha kooxda Roman Ibrahimovic kaasoo asana madax adeeg marka ka bacd wuxuu go'aansaday inuu kooxda iskaga tago sanadka markuu ahaa 2008 tababaraha Jose Mourinho tababaraha weyn wuxuu ku biiray kooxda reer Talyaani reer Italy ee Inter Milano halkaas uu kula guuleystay koobka Serie A sanadkiisa ugu horeysay wuxuu ku guuleystay koobka Serie A uu ku guuleystay 2010 waa sanadku mucjisada dhigi doonay Inter Milan kooxda Inter Milan Real Talyaani wuxuu ku guuleystay daxlidiisa ugu horeeyay koob Treble Winners ayuu 3 koob ayuu hal mar ku guuleystay waa Serie A waa koob Italia waa UEFA Champions League waana kooxdii ugu horeysay oo sidaas sameeyso Real Talyaani oo sidaas sameeyso asagoo markaas noqday Master Special 1 madashanta tababar adduunka oo ugu horeysay oo ku guuleystay UEFA Champions League laba koox u kala duwan asagoo ku kala guuleystay wuxuu ku soo kala guuleystay kooxda reer Portugal FC Porto iyo Inter Milan oo reer Italia oo guuleystay sanadkaas dhamaadkiisa wuxuu noqday FIFA World Coach Cup wuxuu noqday sanadkaas ka bacdi wuxuu noqday tababarihii adduunka oo noqday xasis FIFA ayaa abaalmarintiisa ka bacdi Mourinho wuxuu ku biiray kooxda Real Madrid asagoo markaas lacag record xagga tababarayaasha ugu biiray
وقت جوزيه مورينيو وان انت توبره وصاحب جولها اسagoo markaas kula guuleyso koobka La Liga asagoo record markaas ku qaaday dhibca 100 dhibcood ka badan asagoo ku qaaday dhibco badan ayuu ku qaaday Mourinho waxa uu ka tagay Real Madrid sanadkii 2013 asagoo markaas ku biiray kooxdiisii hore Chelsea asagoo Chelsea dib ayagu asagoo markaas la kula guuleystay Jose Mourinho Premier League asoo markaa kala guuleysay Premier League kula guuleysay League Cup uu la qaaday laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu ku guuleysto FA Cup markiis labaad uu ku guuleysto nasiib daro sanadkii 2000 sanadkii markuu ahaa 2015 Jose Mourinho wuxuu la imaaday natiijooyin xun oo isdaba joog ah sanadkii uu dul qaadan waay markaas toob markiilii kooxda Roma Ibrahimovic ayaa wuxuu go'aansaday kooxda in si nabad uga tago oo la ciirin si sharaf leh markaas kooxdu uu ka tagay asagoo markaas wuxuu ku biiray kooxda ay mucaaradka ay inside u yihiin kooxda Real Manchester United ee England aydan kala dhisan oo diris oo kala dhisan xagaas bay Manchester ka dhisan ku biiray waxa markaas uu Manchester uu la qaaday oo Manchester ku biiray waxa uu la magacaabay tababaraha sanadka Portugal ayaa loo magacaabay waxa kale uu kula guuleystay Man United koobka UEFA Europa League uu kula guuleystay iyo Community Shield uu kala guuleystay iyo League Cup la dhigo oo kula guuleystay oo kale cup la ciyaaro hore Jose Mourinho waa macallin u saaxiib guulal badan u saaxiib asoo kula guuleystay kooxo badan waxa loo magacaabay tababaraha sanadka ee Portugal ayuu ku guuleystay waxa kale uu noqday tababarihii ugu horeeyay ee 1 bilyan ku qarash garay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Jose Mourinho waa tababar weyn intaas ayayna u egtay maanta iyo falqayntii taariikh nololeedkii aan kaga soo hadalnay Jose Mourinho intaas marka inta ku kulmi doonno waxaan leeyahay sidaas nabadgelyo fadlan subscribe noo saar nugu caawi